السلام عليكم. soo noqdo wanaagsan asxaabi. Maanta waxaan rabaa inaan sharaxaad idinka siiyo film lagu magacaabo The Children of Heaven kaasoo soo baxay 1997. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa oday kaba tole ah oo dayactiraya kaba gabdheed. Cali oo ah wiilka uu filimka ku socdo ayaa waxa uu kabaha walaashiis ka yar u soo qaadaya suuqa si uu ugu soo talo. Halkaasi waxaan ka dareemeyn in carruurtan qoyskooda ay yihiin qoys sabool ah. Aabahood waxa uu gadaa shaah isaga ayna ku tirsan yihiin qoyskiisa. Cali markii uu kabihii u soo sameeyay walaashiis waxa uu soo maray suuqa oo adeeg looga diray. Dukaanka khudaarta lagu iibiyo ayuu yimid isagoo bacdi uu kabaha ku watayna dhigtay meel dukaanka banaankiisa ah. Oday qashinka ka qaada suuqa ayaa bacdi Cali kabaha ku watay qashinka ku daray. Cali kama uusan warhayn arrintaas. Adeegii markii uu soo dhameystay ayuu bacdi meesha ka waayay. Wuxuu ka dhex raadiyay weelashii dukaanlaha khudaarta ugu jirtay oo uu markii hore dhex geliyay. Intii uu raadinta ku jiray ayuu khudaartii daadiyay. Dukaanlihii ayaa ku soo baxay kuna qayliyay uuna raacday. Cali waa uu ka cararay isagoo adeega meesha ugu tagay. Dukaanlihii alaabtiisa ayuu iska arursaday. Cali ayaana intii u soo dhuuntay adeegiisii si halhaleela ku qaatay cagahana wax ka dayay. Cali markii uu guriga ku soo laabtay waxa uu arkay hooyadiis oo banaanka hawl ku hayso waxayna u sheegtay inuu adeega u geeyo Sahra oo ah walaashiis ka yar si ay jikada u gasho cuntana ugu kariso reerka. Cali gudaha ayuu soo galay. Sahra markii ay aragtay Cali waxa ay weydiisay inuu kabaha u soo sameeyay in kale, laakiin Cali uu iska dhagatiray su'aasheeda wuxuuna u sheegay inay khudaarta kala wareegto jikadana aado. Sahra mar kale ayay su'aashii weydiisay laakiin Cali waa uu ka aamusay. Waxayna u qaadatay inuu kabaha u keenay. Sahra ayaa istaagtay iyada oo rabtay inay hubiso in kabaha loo keenay in kale, laakiin Cali ayaa is hortaagay una sheegay wixii ku dhacay. Isagoo ooynaya ayuu walaashiis ka codsaday in aysan hooyo iyo aababa u sheegin arrintan. Sahra ayaa sidoo kale ilmeysay iyada oo ka walwalsan kabaha ay berri u qaadan doonto iskuulka maxaa yeelay halkaas joog oo kaliya ay qabtay. Cali ayaa ku qanciyay inuu u soo raadin doono kabaheeda wuuna baxay. Hooyadiis oo aragtay isaga oo guriga kasii baxaya ayaa ku canaanatay inuu walaashiis ka caawiyo shaqada guriga, laakiin Cali dhag jalaq uma siin wuuna baxay. Intii uu wadada ku sii jiray saaxiibadiis ayaa ku yiri kaal ku badna la ciyaar, laakiin Cali waa uu ka cudur daartay. Dukaanka ayuuna aaday si uu si fiican ugu raadiyo kabaha meeshii uu dhigay, laakiin mar kale dukaanlihii ayaa arkay wuuna ka soo cararay guriga ayuuna iska soo aaday. Sahra oo wili ka walwalsan kabihii ayaa qolka ugu soo gashay Cali oo ka shaqeynaya leeliga iskuulka. Iyada oo diidan inay arrintan waalidiinteedu ogaadaan ayay buuggeeda ugu qortay su'aal ah berri maxaan u qaadanaa iskuulka. Cali ayaa isagana ugu jawaabay kabahayga u qaado iskuulka. Sahra oo ceebsatay arrintaas ayaa ka diiday uguna hanjabtay inay aabbo u sheegi doonto, laakiin Cali ayaa u sheegay walaashiis haddii ay aabbo u sheegto in labadoodaba la garaaci doono maxaa yeelay aabbahood ma hayo lacag uu kaba ugu soo iibiyo. Ugu dambeyn Cali waa uu ku qanciyay inay qaadato kabihiisa. Maalintii xigtay Sahra iyadoo dhibsanaysa waxay iskuulka u qaadatay kabaha walaalkeed inkastoo ay ka weynaayeen. Dhanka kale Cali waxa uu sugayay walaashiis si uu kabaha ugu qaato iskuulkana u aado maadaama laba gelin ay kala dhiganayeen, laakiin arrintaasi waxa ay ka saameyn jirtay iskuulka oo waa uu ka daahi jiray. Cali markii uu guriga ku soo laabtay waxa uu walaashiis weydiiyay inay waalidka u sheegtay arrintii kabaha. Sahra ayaa ku tiri uma sheegin mana u sheegi doono, laakiin waxay u sheegtay inay ceebsatay qaadashada kabaha duuga ah kana waaweyn. Waxay labadoodaba go'aansadeen inay kabaha dhaqaan wayna sameeyeen banaanka ayayna ku leeriyeen si ay berri u qaataan. Saqdii dhexe ee habeenkii ayaa roob yimid. Sahra waxa ay kicisay walaalkeed Cali si uu kabaha banaanka ugu soo qaado oo aysan ugu qoyin. Cali sidii ayuu sameeyay. Subaxdii xigtay Sahra kabihii ayay iskuulka u qaadatay. Imtixaan ayay lahayd maalintaas. Imtixaankii ayay boobsiisay wayna soo baxday si aysan walaalkeed ugu daahin. Iyada oo ordaysa ayaa kab ka mid ah kabaheedii waxay ugu dhaceen biyo mareen wadada dhexdeeda ku yaalay. Sahra oo awoodi weysay inay kabta la soo baxdo ayaa iska ooysay. Nasiib wanaag nin meesha dukaan ku lahaa ayaa caawiyay una soo bixiyay kabtii. Orodkeedii ayay halkii ka sii wadatay. Markii ay timid ayaa Cali oo banaanka ku sugayay ku qayliyay maadaama ay ka soo daahday. Calaa ay xal Cali iskuulkii ayuu orod ku tagay wax ciqaabana lama kulmin. daawadayaal filimka qaybtiisa koowaad intaas ayaan ku joojinayn haddii aad leedmo. qaybta xigta insha Allah waxaan soo gelin doonaa maalmaha soo aadan intaan muuqaalka mid lamid aan ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.